السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما أنا مدة الصومالية الملك استوي شوكتهم أنا بالسلام يا وأنا جوها عبدي حسن بري عبدي باج. ما أنت ويدا مرنك تعال كابطيو تقفل بنبوح وكام سنة هاي وإنه تعال كده ما أنت نروح كام سنة يدي صوبان دقيا تعال كبا لفتيس يوحى عن مارت برنامج كيس أنا كام سنة هاي وأركو قلدنا هنا وادي قبان دونتان دان ku saxnahayna waad ila qaadan doontaan waxaan u qabaa jacaylku inuu yahay qodob jiro qalbiga aadmiga ku dhaca qulubta haduu degana sidii qandhado kaluu quudkaba ka goynaya waxaan u qabaa jacaylku inuu yahay qodob muhiim ah inii qurux lagu yagleelo inii qaxar laga ilaalisho inii farxad lagu qorsheeyo inuu yahay rees qabowga qulubta bulshada mideeya waxaan ka qabo jacaylka hadaan wax yar kaaga qeexo qisooyin hore oo ka yaalay qoshuhu boondari u geystay qaysi cilmisu u laayay qabriga leelina u geeyay hadaadan ku qancin warkayga u qaado cilmiga aqoonba waxaan ka qabaa jacaylku inuu yahay shay qadiima qaamuuska ku jira adduunka dhismaha qoyskana horsheeda qorshaha nolosha adduunka inuu qayb weyn ka qaato ayaan qabaa jacaylku waxaan ka qabaa jacaylku inuu yahay qodob saxiix ah inii qurux lagu yagleelo waxaan ka qabaa jacaylku inuu yahay qodob saxiix ah haddana labadii isu qaada qoraalku walow mideeyo waxay ku qoraan xiskooda inayna qof kaleba adduunka qormiye beej wada yagleelin waxaan ka qabaa jacaylku inuu yahay shay qariib ah qareen ku lahayn adduunka haddii in yar lagu qaldoomo quraarad isaga ka liita markii qasad loo sameeyo mudana soo qaata sheeko haddii uu qabsoomi waayo qalbiga daxal baa ku beerma waxaan u qabaa jacaylku inuu qiimeyn ku beermo qofkaad kalgacayl u qaadi inaad qeexdood ogaato inuu adig kuu qalmaayo hadduu ku qanciyo naftaada naftiisuna kugu qancayso waxaad qun yar ugu dhaqaaqdaan inaad qoys wada yagleeshaan waxaan ka qabaa jacaylku inuunan qabiil ahaynoo cidna gaar uun qusaynin dhalinta qura uun ku beermin qaaradna gaar uun u joogin dunida afarteeda qaybood dhammaan waa laga qadariyaayo qorraxdu kama dhacda jacaylkee haddaan isla qarri dhammaanteen inuu yahay qodob saxiixa qatalan caashaqa ka dhowra assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu